dagaal xooggan oo u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ahlu sunna ayaa goordhow ka qarxay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Warbixintaasi ayaa idin faahfaahin doona daawadayaal. Waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan channelada kala ah Maahiye Media Production iyo Southern Media Production. wararka aan ka helayno degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi goordhow uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo kala taabacsan ahlu sunna wal jamaa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. dagaalkan u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ahlu sunna wal jamaa ayaa ka soconaya xarunta inji oo ay degan yihiin mas'uuliyiinta ugu sarsareysa maamulka ahlu sunna. dad goobjoogyaal ah ayaa inoo sheegay in mar qura ay maqleen rasaas culus isla markaana jabiga uu isbedelay iyada oo laga kala cararay goobihii ganacsiga ee ka agdhowaa halka uu dagaalka ka socdo. sidoo kale xalay ayaa magaalada waxaa dagaal kooban ku dhex maray ciidamada ahlu sunna wal jamaa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana dadka shacabka ee ku sugan halkaasi ay dareemayaan cabsi aad u xooggan. isku soo wada duub, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa doonaysa in ay la wareegto guud ahaan gacan ku haynta gobolka Galgaduud, waxaana halkaasi ka jira laba madaxweyne, midka wadata dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kan ahlu sunna